deetana waxaan ugu maqaalaa nin bay guursatay markii ninkii guursatay ninkii anaga waxba hiba anama soo weydiisano ma odhan inantan baan idinka soo doonay ana ninkan aan raacay namay odhanin dhimasho iyo nolol midna kuma tirin karno way dhimatayna ma odhan karno warka mayno way nooshayna ma odhan karno imigana waayaha ugu badan waxa weeyaan maadaama hooyadiin dhimatay aniguna ma anigoon arag baan dhiman yidhi inantii ka war doona waxaan anigu imiga isleeyahay ku qanacun baan leeyahay aabbaha iyo waalidkaa ku qanci maabaa maanta raq yahay unantiina idimay doondoona cagna laguma doondooni kara waayo qofkii cag haddaanad kusoo hirood magaciisii qofkii haystay qabiyaanad garanayn waalidkaa waxaad ku qancin kartaan ummadda muslimiinta ee meel kasta joogta cod dheer iyo cod gaaban idinka codkiina gaadhsiiyo iyo muuqiina oo haddii saa waxba lagu waayada inaan ka samiroon wixii dad loo qaban jira hawshii dad loo qaban jira inuu qabanade daawadayaal idilkiinba soo dhawaada halkan waxaa igula sugan khadra cabdi yuusuf oo ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa khadra maanta waxaan ka wareysanaynaa qiso ku dhacday familygooda isla markaasina ku saabsan walaasheed oo muddo 15 sano ah aanay arag isla markaasina ka maqan arintaas ayaan ka wareysan doonaa iyo bal sida ku dhacday iyo halka xaalku maraya imka anigoo magacayga ku bilaabay magacayga khadra cabdi yuusuf waxaan maanta la socdaa waxa weeyaan walaashay oo ah Faadma Cabdi Yuusuf Samatar oo markii noogu dambeysay magaalada Jabuuti joogtay imagana aanan garanay meel alaale meel ku sugantay inay dhimatay inay nooshahay aanan garanay muddo 15 sano ayaa noogu dambeysay arageeda iyo maqalkayga toonaba waa la raadiyay inanta telefoon iyo lugba waa lagu raadiyay wax waayeeda ka bixinayo oran kara maanta halkaas ku sugan tahay ma jiro dhimasho iyo nolol midna kuma tirin karno way dhimatayna ma odhan karno warka mayno way nooshayna ma odhan karno way bal dadka waxaad faahfaahaysaa markii hore sida ku tagtay walaalood ku weydeen markii hore anagu dadka deegaanka Gabiley hareeraheeda ku xeersan baana waxay raacday islaan aabay ilmaabti yihiin Jabuuti bay u raacday Jabuuti markay u raacday sidii bay ugu shaqaynaysay markii dambe yar roonaatay soo magaalada iska gasho iska shaqo tagtay deetana waxaan ugu maqaalaa nin bay guursatay markii ninkii guursatay ninkii anaga waxba hiba anama soo weydiisano ma odhan inantan baan idinka soo doonay ana ninkan aan raacay namay odhanin laakiin dad xaqiiqa ayaa nagu nin bay guursatay ninkiina waxaa la sheegay ninku nin reer Itoobiya yahay inuu yahay dadka ka soo jeeda wadanka maxayday Dirdhaba qabiilkiisa aanan garanayn marka aanu anoo faafaahin qabiilkiisa laakiin reer Itoobiya yahay uu yahay nin reer Dirdhaba baa noo sheegay inta dabada wax dambe ka waramay maanana ma jirto wax yiri iyo waxaan waanu aragnay yiri iyo wax meeshaas fadhidaatoona ma jirto aniga ay tagay Dirdhaba waan soo raadshay markaan Dirdhaba tagay dad ehelkayga ayaan u tagay waxaan ku dhinaad inaan tayla doontaa ma doonaya Dirdhaba markaan tagay inaan tayla doontaan ku ori waxa la igu ninka magaciisa ma garanaysaa waxaan ku dhima garanayo haye ninka qoladiisa ma garanaysaa ma garanayo deeyle magaalada inta dhex meermeerna gabadhay magaalada gabadh ma aragteen ma odhanayne iska hooyaa la igu sidii baan ku soo noqday waxaan ku doondoo si fiican waan garan waayay waayidii markii qofkii aan dadkii aan u tagay waa ehelkayagii ninkii magaciisa aan garan waayay maxay ahayd qabiilkiisa aan garan waayay qofkii dadku inta badan hadduu qofku lumo ama la waayo waxa lagu raadiyaa ama qabiil ama magaciisa saddex ninka qabade ama cid u dhaxday intii hadaan midna ma garanayn hadii geedkan dabadiisa joogto ma soo saari kartid Soomaa ma soo saari kartid way bal markii xaafadda ay inantu intaas oo dhaqan maqnayd waalidkii iyo adiga iyo bal dareen noocay bay ku sameeyay marka hada waalidkay hooyadina way dhimatay Allah u naxariisto aabayna waa oday weyn oo raqa meel lama tagi karayo marka ahaan ay la waayay daa'imay dhigan laakiin xanuun baa dhigo dadka iska xanuun loogu ahaa marka meel uu gaari kari waayay xanuun darteed imagana raqab uu noqdayba imagana waayaha ugu badan waxa weeyaan maadaama hooyadiin dhimatay aniguna ma anigoon arag baan dhiman yidhi inantii ka war doona ummadda muslimiinta ee meel kasta joogta ee daafaha caalamka meel kasta joogta garanaya magacayga iyo muuqayga ayadana garanaya halkuu arko ay la soo socodsiiyaan lahaanu marka miya la qaatay maxaad ku maleyseen markii dambe aad isweydiiseen anigu markaan isweydiinay waxaan anigu imiga isleeyahay ku qanacun baan leeyahay aabbaha iyo waalidkaa ku qanci maabaa maanta raq yahay
uneenantiina idimay doondoon cagna laguma doondooni kara waayo qofkii cag haddaanad kusoo hirood magaciisa qofkii ka haystay qabiyaanad garanayn waase waalidkaa waxaad ku qancin kartaan ummadda muslimiinta ee meel kasta joogta cod dheer iyo cod gaaban idinku codkiina gaadhsiiyo iyo muuqiina oo haddii saa waxba lagu waayada inaan ka samiroon wixii dad loo qaban jira hawshii dad loo qaban jira inuu qabanade iskaga samirnade bal wax sawiro aad ka haysaa ma jirtaa ma jirto wax sawir haba yaraatee aan ka hayna laakiin inan yaro cas oo dhuuban oo ila weeyaan bilaa laxaado ishaasay ilbay laadahay way laxaad laadahay weliba fariintan u dambayseen u diraya waxa weeyaan anigoo ah Khadra Cabdi Yuusuf raadinaysa Faadmo Cabdi Yuusuf Samatar halkii inoogu dambaysana ay tahay magaalada Diridhaba ummadda muslimiinta meel kasta joogta waxaan ka codsanaynaa qofka magacayga iyo muuqayga garanayo inuu walaashay raq iyo ruuxi qofkii arka inuu ila soo socodsiiyo telefoonkayga oo ah 402539 iyo telefoonka kale ah 242596 inta ligala soo socodsiiyo labada telefoon